ku wacyigeliyo korna ugu qaado xirfadaha kala duwan ee dhalinyarada. Ma aha qof loo tilmaamay shaqadu ku habboon yahay inuu qabto, balse isagoo ku jira da'aha yar tahay in la arko qof dadka kala raba inuu ku hago dariiqada guusha, ayuu ku dhiiraday inuu bixiyo casharo kor u qaadaya kalsoonida dhalinyarada waqtigan ee qaarkood la cid jahaysa. sidoo kalena waxa uu tababaray heer sare ah siiyey goobaha ganacsiyada dalka oo kadib casharadiisa ay ka tageen culays ay dareemayeen. magacaygu waa Xamse Saciid Maxamed Xamse Turaale, waxaan ahay asaasaha Turaale Consulting Firm, sidoo kale waxaan ahay la taliye ganacsi iyo tababare dhalinyaro. Turaale Consulting Firm waqtigii asaaskiisu waxa ahaa 15kii bishii 9aad 2015. waqtigaas sababta ugu weyneed oo asaasay waxay ahayd inaan ku wacyigeliyo korna ugu qaado xirfadaha kala duwan ee dhalinyarada. ilaahay ma hadii muddo kadib oo hadda laga joogo 4 sano waxa aan u digaragonay oo xooga saarnay dhanka la talinta ganacsiyada iyo tababarka shaqaalaha. qaabkan dhalinyarada u dhiirigelino waxa koow ka ah dhanka social media aan ku leeyahay barnaamijyo kala duwan oo ka hadla ganacsiga, sidoo kale ka hadla isbedelka iyo qaabka qofku waxa uu wanaajin lahaa naftiisa. xagga marka laga hadlayo tayeynta shaqaalaha iyo tababaradooda waxaan u siinaa tababaro toos ah kuwaas oo ku saabsan waxyaalaha la tacalluqa wax soo saarka shaqada ama waxa la yiraahdo personal productivity management-ka oo qaabka qofka shaqaalaha uu maamuli lahaa una maareyn lahaa korna ugu qaadi lahaa wax soo saarkiisa shaqada, iyo sidoo kale xirfadaha asaasiyaadka oo ah qof kasta oo shaqaala kana caawinaya in shaqadiisaasi fududaato. waxa ugu weyn ee igu dhaliyay inaan hawshan bilaabaa waxay ahayd anigoo arkay waxaan dhalinyaro badan oo caqabad ka haysato noloshii qaarkood isdiibeen, qaarkood gabalooda bilaabeen, weligiina aan iska jeclaa waxa la isbedelka ama waxa qofka dhalinyarada inuu wax qabsado. marka maalinkaas go'aankii aan qaatay oo ahaa in inta awoodeyda iyo inta cilmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay siiyay in hay waqtigaas inaan ku bilaabo. waxa la togol bitaagtibu rogmadaay waqtigaas ولو أنا خبرتان هذا هي أنا هينين يوحويان علميكا هذا نوع حكوا بلعبي هل كي أن كبلا بكريي يوحويان ريسورس كي أمبا قلب كي أن هيستي يو حكتي أن هيبة قرشيش أنا هاي دنيا رضا أدبي بدين، لكن هذه لبكة تعبتو واحد شراء إمكا برنامج أنا قلت لك علي دنيا رضا تشعل inay noqdaan inay sameeyaan hal abuur ganacsi ama inay noqonin shaqaale ama dadka shaqaalaha ee doonaya inay tijaabiyaan awoodooda xagga inay bilaabi karayaan ama awood u yeelan karayaan inay ganacsi abuuraan. barnaamijkan waxa la yiraahdaa Somali Online Mentorship, waa qaab hagisa maaha qaab tababara, waa qaab hagisa oo qofkii 3 meelood laga dhisayo. qaybta koobaad waxa qofka hadduu shaqeeyo waxa laga dhisayaa xirfadaha shaqada. qofku hadii uu doonayo inuu ganacsi bilaabo wuxuu ka helayaa dhammaan resource-kii ama waxyaalaha uu baahnaa si uu ganacsi u bilaabo. sidoo kale qofku wuxuu ka helayaa wax kasta oo hagaajinaya psychology-diisa ama fikirkiisa si uu nolosha guuliga gaadho. barnaamij labaad baa isaguna jira oo la yiraahdo 100% noqo qof ganacsi bilaaba ama 50% entrepreneurship. programkani waxa uu kaliya xooga saaraya dhalinyarada shaqeysa ee jecel inay bilaabaan ganacsi iyaga oo ka cabsanaya haddana inaanay shaqadooda ka tagin. marka ay isku tijaabiyaan hadii ganacsigaasi uu guuleysanay ganacsiga ugu wareegan hadii kalena ay ganacsiga wax ugu bartaan. marka barnaamijkan waxa uu xooga saaraya dhammaan xirfadaha u baahan yahay qofka entrepreneur-ka ama qofka doonaya inuu ganacsi bilaabo. haddii noqoto dhanka samaynta qorshayaasha ganacsiga aanu ka caawinayno iyo dhammaan xogta kale u baahan yahay qofkaasi si uu guuleysto ganacsigiisa. qofka dhalinyartii si isbedel u sameeyo kulli waxyaalo fara badan u baahan yahay halkan kusoo koobi karayni. laakiin haddii aan ka taabto qodobada ugu muhiimsan waxa koow ka ah inuu qofku isqiimeeyo dhalinyartii oo ogaado halka uu taagan yahay. si uu ogaado halka uu taagan yahayna wuxuu sameyn karayaa waxa la yiraahdo oo isku qiyaas karayaa personal SWOT analysis oo ah 4 qodob oo uu qofku ku ogaanayo waxyaaluhu ku wanaagsan yahay, waxyaaluhu ku liito, fursadaha uu haysto iyo caqabadaha haysta. dhammaan isqiimeyntani waxa ay qofku tusi doontaa dhalinyarta inuu ogaado halka uu taagan yahay, waxa ka dhiman iyo waxay fursadaha haysto iyo caqabadaha haysta. sidoo kale si uu caqabadaha laftigooda waxa lagu raadiyo. waxa labaad u baahan yahay waa inuu fikirkiisa wanaajiyo
waayo ha fikirku waa shayga kaliya ee nolosha la isku dhaafay haday noqoto dhanka ganacsiga haday noqoto waxbarashada iyo haday noqoto dhanka shaqadaba qof kasta ha fikirkiisu intuu leeyahay ay noqon doontaa waxa weeyaan nolosha halka uu ka gaadhaya qodobka saddexaad waxa weeyaan inuu qofku ka adkaado naftiisa oo uu dhiso self discipline ka waxa la dhahdo ama yacni uu tarbiyadeeyo naftiisa tan in badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga la hadlay oo tarbiyadeynta naftu waa shay aad muhiim u ah markay noqoto dhanka diinta iyo markay noqoto dhanka shaqadaba qofka naftiisa ka adkaan way adkaanaysaa inuu waxa weeyaan noloshiisana uu maamulo qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan inuu qofku xoojiyo ku xunaanshiyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cibaadada tan oo sahli doonto in uu noqdo qof ruuxiisu awood leedahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali galiyay Ilaahayna ka adduunka iskale iyo waxa dhex yaalaba wuxuu fududeyn doonaa hawlihiisa adduunka hawlihiisa aakhiro marka afarta qodob waa afar qodob oo u sahli karaya qofka dhalinyarta inuu isbedel fiican sameeyo لا يا هوي حتى بنظر الله يستطاع هو علمي رابن عانو بلاوي يايو عاني هانو بلاوي الهابن قبلها وقرادينيا والناس ينحكوا دعي هو الناس كعاني بكيرادو لا هوي قبلها بدعي ورضو المها عانها كوف لق قدوم اوه يا هالكي لقى هليا المدانة دودن حطا كعيا والله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة والله waxaan u baahanahay caanaha coffee lake coffee lake ha tuuga والله ما شاء الله والله كرتونكوga ma haysaa ها كرتونكوga aan u baahanahay way ku soo soo وقوا أنا كوفلك ha عرضتي كورياني كبي أوبل تجابي hayo way ma tijaabinaya هاي والله هاي فرصة ويعانيه ينكو بريد كنا حدي ويكون في لقبانكو هو داي يكبو كل أنا كوفلك waxaa ku jira dhammaan fitamiinada iyo macaadinta ugu muhiimsan ee koritaanka ilmaha yar Conflict stage 1 xilliga dhalashada ilaa 6 bilood hore Conflict stage 2 6 bilood ilaa 12 bilood Conflict stage 3 hal sano ilaa 3 sano stage kasta oo caana Conflict waxaa ku jira nafaqo u dhiganta taw ilmuhu u baahan yahay da'da uu marayo wixii faahfaahin kala xidhiidh ciwaanada shaashada kaaga muuqda